waxaan ugu baaqayaa xukuumadda iyo guddigii abaaraha iyo hay-adaha deeqda bixiya waxay taagan tahay halkii wax la iskaga qaban lahaa bay taagan tahay runtii. biyo baadba waanu u baahannahay haddaanu helina gargaar walaalahay aanu ka helano dawladdeeda ka helano waan u baahannahay. baad iyo biyo midna lama hayo. waxaanu doonaynaa maanta gurmad degdega in loo fidiyo. wixii socon karaya ama wixii guuri karayna iska guureen, wixii daan dhaqaaqi karayna iska joogaan, marka ina aad iyo aad la noo caawiyo ayaanu doonaynaa insha Allah. baad iyo biyo waan goosanay, xoolihii way ka qaxeen, dadkii baa khatar ku jira. deegaankan waa laga hayaamay, waxaana loo kala hayaamay Itoobiya oo ay waxa weeyaan inta madar ugu sokayso ayaa waxa weeye dadkii u hayaameen iyo dad gobolka awdal waxa weeye tegey. wixii gurmada ee biyaa ee dawladdu khaas ahaan ay kari karto war hanoo soo gurmato laga qayliyaa uuna helay abaari col iyo wax kale namuu gelin. xildhibaan cali maxamed xasan oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa kormeer indheendheena ku soo maray deegaanada laga soo doorto oo eedanka deerayaanka iyo deegaanka godka carrada, halkaas oo ay ka jiraan abaare baahsan oo sababay in iskaga guuraan qaar ka mid ah dadkii deegaanadaasi. xildhibaan cali maxamed xasan ayaa aad uga deeriyay xaaladaha abaareed ee ay wajahayaan dadka deegaanadaasi, isagoo xukuumadda iyo hay-adaha caalamiga u diray baaq ku aadan inay gurmad degdega la soo gaaraan dadka jilicsan ee xitaa awoodi waayay inay dhaqaale awgeed uga guraan deegaanada abaaruhu saameeyeen ee godka carrada iyo eedanka deerayaanka. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta halkan aan joognaa waa eedankii deerayahanka Maxamed Jibriil. waxaanu soo marnay godkii carrada ilaa halka aynu joogno eedankiiya. run ahaantii sida aynu ognahay ee aynu la soconno dhulkeenna waxaa ka jira iyo waddankeenna abaar aad iyo aad u baahsan. abaartu way sii kala daran tahay. deegaankan aan joogno waxa weeye waa eedankii deerayahanka. meelaha ay abaartu aad waxa weeye ugu dhacday ayuu yahay deegaankani. abaar aad iyo aad u baahsan oo adag oo ilaa 2 sano soo socotay ayaa dadkan ku dhacday. deegaanka kan wuxuu u dhaxeeyaa Kalabaydh iyo Geed Ballaadh. halkaana wuxuu ka soo noqonayaa Tuurcaanood oo Wajaale agteeda ah. waxa weeye deegaanku halkaas ku yaala, waxaanu ka tirsan yahay gobolka Gabiley. deegaankani waa dadka waxa weeye halkan waxay ahayd meelaha ugu waxa weeye nicmada badan ee raxmaadka Ilaahay aad waxa weeyaan uga di'i jireen. dadkana iyagoo hadlaya oo abaar ka cabanaya inta badan looma baranin. deegaankani sida aynu sheegnay marka horeba xagga xukuumadda hagrasho fara badan baa jirtay, hadday noqoto xagga horumarka, hadday noqoto iyo xagga hadday noqoto manaasibta siyaasiga ah, labadaba hagrasho aad iyo aad u fara badan ayaa waxa weeye markaa ka jirta. tiibay maanta abaartaasina ugu dhacday. waxa weeye wixii kale tabashooyina qodaxi meesheeda waa la iskaga iman doonaa. habase yeeshee maanta waxaan ka hadlaynaa waa abaarta deegaankan ku dhacday. runtii deegaankan waa laga hayaamay, waxaana loo kala hayaamay Itoobiya oo ay waxa weeyaan inta madar ugu sokayso ayaa waxa weeye dadkii u hayaameen iyo dad gobolka awdal waxa weeye tegey. ciddii tegi karaysay waxa weeye markaa guuri karaysayba way ka guurtay. maatidii iyo carruurtii iyo dadkii kici kari waayey ayaa runtii ku harsan. arrintaasi waxay taagan tahay halkii wax la iskaga qaban lahaa ayuu maanta deegaankani joogaa. marka koowaad waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala, gacanta Ilaahay baa lagu dhargaaye inuu Ilaahay soo gaadho. Ilaahay baan sidaa uga baryaynaa marka hore. mar labaadka ummadda waxaan u soo jeedinaynaa in la iscafiyo oo la isa saamaxo. waxa weeyaan taana waan u soo jeedinaynaa. markay suruqdo unbay indhaha sare u yuubtaa, waa kii yidhi timacadde. goortay nicmadu taagan tahay waa sidii kale,
ilaahii dhibcahaas haddii ay is wada saamaxdaan saaka wuu curanne ilaahii dhibcaha siin jiray oo way silloon tahay marka in la iswada cafiyo la isa saamaxo guud ahaan waddanka oo dhibaatooyin fara badani ka jiraan gaar ahaanna deegaankan waan u soo jeedinaynaa intaa markaan ka imaado waxaa waajib ah oo dowladda iyo xukuumadda waxa weeyaan ku waajib ah inay dadkan gurmad degdega waxa weeye la soo gaadhaan waxaan ugu baaqayaa xukuumadda iyo guddigii abaaraha iyo hay-adaha deeqda bixiya waxay taagan tahay halkani halkii wax layskaga qaban lahaa bay taagan tahay runtii in dadkan waxa weeye si degdega wixii la heli karo loola soo gaaro iyo dadka waxa weeye muxsiniinta ah ee deeqda bixiya dhammaan waxaan u soo jeedinaynaa deegaanka kan maanta abaar waxa weeye gobolka intiisa kale aan ku dhicin ayaa ku dhacday sida runta ah waxa weeye markaa intaa waan codsanaynaa waanan ugu baaqayaa xukuumadda waxa weeye iyo hay-adaha deeqda bixiya iyo dadka muxsiniinta ah iyo guddiga abaarahaba waxa weeye deegaankani sidaa hore loo sheegay wuxuu lahaan jiray ama wuxuu leeyahay ballayo waaweyn oo deegaanka inta ku dhow waxa weeye markaa biyaha laga siin jiray oo ay ka cabbi jireen maanta waannu soo marnay waxa weeye muddo waxa weeye 2 sano ah waxa weeye biyo may gelin dhulku waxa weeye abaar aad iyo aad u baahsan baa jirta sidaa aanu sheegnay waxaannu codsanaynaa haddaannu nahay mas-uuliyiintii ka soo jeeday deegaanka kan waxaannu codsanaynaa in dadka waxa weeye gurmad degdega lala soo gaadho waannu codsanaynaa bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa maxamed horta waxaa soo dhibaato iyo waxaa soo maxaan dhaday hadalaba waxa ka hadlay odayaasha annaguna waxaanu ku darsananaa inay abaarahaasi jiraan oo dhibaatadaasi jirto oo weliba 2 sano ay noo maraso wax kale oo ku dari karna ma jirto waa odayaashuba ka hadlayna meesha dhibi ka taagan tahay wixii socon karaya ama wixii guuri karayna iska guureen wixii daan dhaqaaqi karayna iska joogaan marka ina aad iyo aad la noo caawiyo ayaanu doonaynaa insha Allah raxiim marka hore horta ilaahay baa mahad leh mahadi alla u sugan tahay mar labaadka goobtan waxaan ka fidinaynaa cabasho abaareed annaga oo ah ciidanka maxamed jibriil deerayahan abaartaasoo 2 jira oo dad iyo duunyaba saamaysay biyo la'aanina ay gow taagan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taasi waa ta salaanta waajib noogu leedihiin ta kale waxa weeye intaa walaalkaya maray waxa weeyaan waxaasaan nahaya abaartaa iyo haddii aan leedmayo biyo la'aan baad la'aan 2 sannadood bayna haysataa dad iyo duunyaba waanu raafdilacsannahay biyo baadba waanu u baahannahay haddaanu helina gargaar walaalahay aanu ka helano dowladdeeda ka helano waan u baahannahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xukuumaddanna soo muuqatay xildhibaaniin iyo sharaf iyo maamus bay leeyihiin intaa kadib waxaan codsananaa gurgur horta ilaahay baa la gurmay ilaahay baynu ka suganaa inuu ku ballaaran oo deegaanka iyo dadkaba wada gaarsiiya habase haatee haddana dee dowlad ahaan wixii ilaahay dee noogu soo dhiibay ee ay kari karaan waxaan leenahay baad iyo biyo midnaba ma hayno deegaankan oo godka carradii waxay u abaar 2 jira kal hore sanadka waa tii 2 waxaanan leenahay wixii gurmada ee biyo ah ee dowladdu khaas ahaan ay kari karto war ha noo soo gurmato yaa wixii alla noogu dhiibay salli calaa maxamed dhammaan horta waad salaamantihiin shirkan iyo wafdiga noo yimid halkani waxaa la yidhahdaa godka carrada waa galihii togba jaale halkii reer somalilan oo dhan halkii laga masaarifiin jiray daaq iyo dalagba abaar 2 jira ayaa nagu dhacday kal hore sarcugu naga baay sanadkana roobba nooma diid ninkii socon kariyey oo dhammina uu ka qaxay intii bilaamija ahaydee socon kari weydi yaa taagan meesha markaa ilaahay baan gurmad ka doonaynaa oo ilaahay baa gurman kara abaarahana inaga saari kara dowladdana waxaan weydiisanaynaa dee caawimo wax dabcuna iyo wax dunya cuntaba iyo baad iyo biyaba dowladdana caawimaan weydiisanaynaa